sida qof looga dhigo mid si aad ah ku jecel si ka soo horjeeda sida dad badan ay aaminsan yihiin jacaylka waa la kontrooli karaa tan macnaheedu wuxuu yahay si ula ka ah ayaad qof soo jiidan kartaa ugana dhigi kartaa mid ku jecel isla markaana aad jacayl ugu abuuri kartaa haddii aad raacdo isla markaana aad samayso ficilada saxda ah ee loo baahan yahay ka hor inta aanad qofka ka dhigin mid ku jecel waxa waajib ah inaad dareenkiisa soo jiidato wax kastaba ha kugu qaadatee waa inaad qofka tustaa inaad gebi ahaanba ka duwan tahay dadka uu hadda yaqaano samee wax qofka tusaya inaad dadka ka duwan tahay isla markaana waxaas ka noqdaan wax fiican oo muhiim ah tusaale ahaan uga waran qaar ka mid ah tayooyinkaaga waaweyn ee aad leedahay si aan toos ahayn intaa kadibna saaxiibo aad wadaagtaan oo idinka dhexeeya si positive ah kaaga hadlaan markaad maqan tahay tani waxay si saa'id ah u kordhinaysaa fursadda uu qofku kugu jeclaanayo haddii aanad ku guulaysan inaad sidaas samayso samee waxyaabo kale oo special ah oo qofka dareenkiisa soo jiita u soco qaab ka duwan qaabka dadka kale u socdaan u hadal si ka duwan sida dadka kale u hadlaan u labisa qaab ka duwan qaabka dadka kale amaba samee ficil kasta oo si fudud loo ilaawi karin hadafka aad leedahay talaabadan koowaad ma aha inaad qofka ka dhigto mid ku jecel balse ujeedku waa inaad ka dhigto mid ku xasuusta oo aad dareenkiisa qabsato qofna ma jeclaa in la diido kadib markaad qabsato qofka dareenkiisa ee aad aqoon u yeelato waxa labaad ee ay tahay inaad samaysaa waa inaad qofka dareen badan siiso isla markaana aad amaan badan ugu qubayso waxyaabahan oo dhan si toos ah u sameyn qofku yaanu u malayn inaad jeceshahay balse u dirdareenno isku dhex jir ah oo uu ku wareero qofka ha tusin inaad tahay qof baahan dareenadaadana si toos ah u soo bandhigin balse sidaa beddelkeeda qofka si masalooyin yaab leh oo aan la xallin karin qofka maskaxdiisu ha kugu wareerto dhinacay kuu qaadana ha weydo wax badanna ha kaa fikirto ku ammaan qofka meelaha aanu hubin inuu ku fiican yahay balse ha ku ammaanin meelaha uu aadka iskugu kalsoon yahay tusaale ahaan haddii ay gabadhi aad u qurux badan tahay horeba way og tahay inay qurux badan tahay dad kaloo badanna hore way ugu sheegeen sidaa daraaddeed waa inaad ku ammaantaa meelaha aanay hubin inay ku fiican tahay qof kastaaba wuxuu jecel yahay in la taageero isla markaana la dhiirigeliyo tanna waxay qofka ku sababi doontaa inuu kugu soo xidhmo halkaa markaad taagan tahay dib uga gooso jooji inaad qofka dareen basiiso sidoo kalena soo gaaba xidhiidhkii aad la lahayd qofka aad rabto inaad soo jiidataa dareenka uu kaa waayey wuxuu tixgelin doonaa inay tahay diidmo oo kale maadaama aanu qofna jeclayn in la diidana waxaa laga yaabaa inuu bilaabo inuu kaa daba dhaco oo uu ku cayrsado hadafka aad leedahay waa inuu noqdaa sidii qofkan aad jeceshahay kaaga daba dhici lahaa xaggii aad adigu ka daba dhici lahayd waa inaad qofka u dirtaa dareenno iyo farriimo isku dhex jir ah ilaa aad ku qasabto inuu kaa daba dhaco u beddel xiisahan jacayl halkaa markaad taagan tahay adeegso saaxiibada iyo asxaabta aad wadaagtaan u dir asxaab aad wadaagtaan si ay si cajiib ah kaaga hadlaan marka ay qofka la joogaan bilow inaad tayooyinkaaga fiican aad mid ugu soo bandhigto qofka hortiisa tayooyinkaaga fiicani maaha kuwa aad adigu aadka iskugu jeceshahay balse waa kuwa qofka taargetka ku ahi aanu lahayn tusaale ahaan haddii qofka taargetka ku ahi uu aad u xishood badan yahay waxaa suurtagal ah in kalsoonida naftu ay aad u cajiib geliso tayooyinka kalena waa sidaas oo kale haddii qofka taargetka ku ah ee aad beegsanaysaa uu waxoogaa kaa rajo dhigo mar kale dib ugu laabo adigoo waxoogaa dareenaha tusaya isla marka uu haddana bilaabo inuu rumaysto inaad jeceshahay dib uga gooso mar kale ficiladan isku dhex jirka ahi waxay qofka aad beegsanayso ku cadaadin doonaan inuu wakhtiga inta ugu badan kaa fikiro isla markaana uu la yaabo sababta aad sidan u samaynayso halkaa markaad joogto qof